amnigii baa gacanta ka baxay noloshii baa gacanta ka baxay kamaamul ahaan annagoo kaashanayno ugaaska guud ciidamada qaybahooda kala duwan bulshada waxaan gacan bir ku qaban doonaa amniga aniga hadda gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadana amniga markii la yiraahdo qofku ugu horeeyo oo maamulku wuxuu matalaa shacbiga aniga aan mas'uulka ka ahay amnigooda marka waxa way gorgortan ma gali doono maamaya ugaaska guud ee beeshiisada ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi ugaas maxamed saraakiisha ciidamada taliyaha guutada taliyaha ciidamada admis taliyaha booliiska degmada gudoomiyaha degmada dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada odayaal dhaqameedka culimaa diinka dhalinyarada waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka qof walba maqaamka iyo title-ka uu ku fadhiyo waxaan si guud ugu mahadcelinayaa ugaaska guud ee beeshiisada ee gartay danta shacabka maanta inaysan ahayn maalin siyaasad iyo isqabsi laga hadla ay tahay maalin in la gurmado oo shacabka waxa weeye dhibaataysan loo gurmado dhibaatadu waxa weeye hoostanaday taala maanta airportkii degmadii oo xiran raashinkii shacabka masaakiinta yaalo oo waxa weeye isqabsi iyo caqabad jirto awgeed dadkii loo gaarsiin laayahay buudnooyinkii gobolka uu lahaa oo noo soo waxa weeye marahayeen waxay qutul daruuriga ahaa iyo nolosha aasaaska ahayd oo go'ay maanta ma ahan marka maalin siyaasad iyo isqabsi maanta waa maalin si wadajir in loo gurmado ay tahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo culimaa diinkii odayaal dhaqameedkii dhalinyaradii inta tashaday isu tagay gartay in yani ugaaska go'aanka uu qaatay ay waxa weeye la qaataan oo waliba ayaga soo jeediyaan waxa weeye maanta waxaad ku astaysantiin taariikh dahaba bulshada reer Garbaharey ma aha inaad maamulkii waxa weeye aniga iyo gudoomiye imaan inaad u hiiliseen ma aha waxaad u hiiliseen rabitaanka dareenka bulshada dhibaataysan baad u hiiliseen waxaan idin ballan qaadaynaa annaga maamul ahaan marjac inaad noo noqotaan talo walbo iyo xaalad walbo oo magaalada Garbaharey ay ku sugan tahay marjaceedii inaad noqotaan waan kaga mahadcelinaynaa ma aha kaliya maamulka aqoonsigiisa waxaad badbaadiseen dadkii masaakiinta ahaa waxaad badbaadiseen masiirkii ummadda dhan Allah idin sharfo waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyaradii waxa weeye degmadii deganaa oo ayadana waxa weeye laga gaaray waxa weeye go'aan fiican oo inay dib waajibaadkoodii shaqo iyo shaqooyinka xiriyahoodii ay ku noqdaan in marka nabadgelyada la adkeeyo xasilooni dadka lagu soo dabaalo gurmad la fidiyo maanta buurdhuuba oo noogu sokayso buundadii oo bay oo xamar wax uga imaanayeen waa go'an tahay baar dheer waa go'an tahay luuq oo hadda annaga wax noo soo marahayeen waa qiilqiil bay ku jirtaa marka nolosha bini aadmiga waxa ugu horeeyo aasaaska ah waa qofku inuu helaan nolol iyo amni kamaamul ahaan annagoo kaashanayno ugaaska guud ciidamada qaybahooda kala duwan bulshada waxaan gacan bir ku qaban doonaa amniga aniga hadda gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadana amniga markii la yiraahdo qofku ugu horeeyo oo maamulku wuxuu matalaa shacbiga aniga aan mas'uulka ka ahay amnigooda marka waxa way gorgortan ma gali doono hadduu ilaahay yiraahdo annagoo la shaqeynayna qaybaha kala duwan ciidamada booliiska militariga iyo admis gacan biraha lagu qabanaya wixii ku xadgudba amniga shacabka iyo dadka aad baad u mahadsantihiin hadalkuna waa soo koobaya aad baad u mahadsantihiin